السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسروا هذا القناة AJ فادنا أصحاب مالك ساتشوكتين والله سلامية منطقة سكر عندي وضع قصتنا مارتي أبي والله أنا إتابتي وايو مركز خوية تحي وحي كساب سنة عرور بماركتي دي وكتابة نسا عرور تاذا كفكريسا مركا إن تاني وحي كساب سنة تحي ويل هويدي أبي مرسي في عمسو قرصدين ودالك إنجليز كمارتي المهاير koray ku dhashay waa reer Ingiriisi weeyaan qof kasta oo maanta caruur teenager la maartay ilaa 15 sano iska dheh intooda badan maartay ciyaalka iskuulka markay maartay ka yimaadaan guriga joogaan game bay hooyadood iyo aabahood u soo iibinayaan oo ku ciyaarayaan waxaan game ka leeyahay marka inta badan hada wiilashu waxay jecel yihiin ba online gaming wax la yiraahdo I know hada some people maartay dad badan baan ogahay caruurahooda maartay inay qolka isku soo xiraan oo qalab dhan baa loo soo iibiyaa kaasi ku jiraan ka hooyadii abi waxay sileeyihiin oo caruurtii maartay at least dibadda iimaan wareegayaan especially hadda degan tahay UK maanta London joogtidba oo wiilkaaga 13 jir afar jir oo qolkiisa ku jiro oo uu maartay game ciyaarayo waxaad leedahay inankaygu waa safe weeyaan meel maartay suuqa ma wareegayo waxbuu bartaa halkaas maartay asxaabtiisa kala sheekaystaa marka inta waxa fahmi doona inta dadka hada wiilashada da'da maraya jecel waxaan online game la yiraahdo oo marka qof kale la xiriirayaan halkaas abarta kulli waad aragteen hooyooyin bas fahmi doona dhagaxa ugu jira halkaas kala sheekaysanayaan game baa halkaas maanta la ciyaaraya waxaan fahmayn oo muuqaal kale u eegayaan saacado bidul fadhiyaan xiliga cuntadu baad u yeeraysaa anyway waska fahmaysan iska sawirtana maaragtay qof dhalinyaro oo wiil dhalinyaro 12 jir 13 jir 14 jir oo de computer haysta oo halkaas game maaragtay waxaan ciyaaraha online ku ciyaarayo kale bay sheekadana ay ku socotaa marka qisada maanta idin wadaa waxay ka dhacday dalka Ingiriiska aan hadda deganahay anigu magaalada London marka inankan waxa la yiraahdaa break baa la yiraahdaa inankan 14 jir buu ahaa markii uu dhintay waxaana dilay wiil kale oo sagana wax yar ka weyn laakiin aad nin qaan gaaray buu ahaa marka wiilkan kan yare break la yiraahdo reer maaragtay wuxuu ka dhashay caruurtooda oo dhaqaale haysta oo ciyaalkooda si fiican maaragtay tarbiyadooda maaragtay si fiican u soo tarbiyay wax bartay wax si fiican maaragtay ciyaalkooda wuxuu baraa reer aan dayacnayn bay ahayd oo caruurtooda si fiican u soo korayay inankan la yiraahdo break wuxuu aad u jeclaa isagii asxaabtiisa iskuulka maaragtay markay ka yimaadaan ama ay waqti haystaan in qolkooda maaragtay intay galaan ay maanta oo dhan online gaming ay ciyaaraan marka online gaming kaliya ma ciyaaraysid aan idin sheegaba dad baad maaragtay dad kale aad online oo markaa live maaragtay baa isla ciyaaraysaan waa isla xiriirisaan codkii wad maqlaysaa qofka muuqaalkiisa ma arkaysid laakiin codkiisa aad maqlaysaa marka inanka 14 jirka ah isagii asxaabtiisaba waqtiga ay free yihiin oo aynan maartay iskuulka jirin computerkaas uu hor fadhiyaan halkaas baa laga ciyaaraya marka waxa maalin ka mida waxa ay la kulmeen meeshii ay gaming ku ciyaarayeen wiil ka yara weyniga bay la kulmeen inankii marka wiilashii buu dhaxgalay halkii iskala saaxiibay oo adiga waxa ka soo qaadaa meel maartay kubad meel lagu wada ciyaaro kale oo qof ku soo biray oo qofkii maartay dadka la isfahmeen marka qof baa hadhowto maartay qof buu ku dhawaanaya marka inankan cusub aad marka waxay isfahmeen inankan break la yiraahdo 14 jirka base barteen inankii halkii marka iyagiiba marka toos isula xiriiray oo uu tababaraya waayo qofku markuu ka yar weeyahay waxaad jeceshahay inuu wax ku baro soo maaha dad maartay waliba isku meeltiin isku wax marka ka baranaysaan marka wiilkana 14 jir waxa kalena wuxuu ahaa 18 jir iyo 19 jir meelahaas ahaa wiilkii wuxuu sameeyay inuu waqtigiisii oo dhan inuu geliyo gameka oo wiilka la ciyaaro marka marba sheekada soo socotay ay marka hore game base iska la ciyaarayeen qorso maaha wiilkan kale soo ku soo kordhay meesha magaciisa waxa la yiraahdaa Lewis baa la yiraahdaa Lewis marka inankii maskaxda ku qabsaday inankira maskaxda markuu qabsaday wuxuu arkay inuu inankan maartay rumaysanayo wuxuu u sheegayo dhan wuxuu bilaabay marka ninkan wiilkan ka weyn Lewis inuu yiraahdo
waxaan ahay nin maxay shaqaysta oo lacag badan baan haystaa milyan dheer baan ahay been buu sheegay kii yaraa waayo tan sheegay ogaada muuqaal ma jiro wax muuqaala maartay ma arkan marka wuxuu leeyahay waxaan haystaa company baan haystaa millionaire baan ahay company baan u shaqeeyaa New York iyo Paris iyo London iyo waxaasaan u dhexeeyaa marka adiguna waxaan doonayaa inaad hadhowto ila shaqaysid waxaan ku iraadana maaragtay inaad qaadatid oo kale waa ilmo yar 14 jir buu maaragtay la talinaya marka ogaada hooyadu waxba kama oga waxay isleedahay inankeedu de qolkaas ku jiraa halkaas uu maaragtay gamekiis ku ciyaaraya de qofna ma taaban karo gurigiisii buu joogaa wiilkii markaa bilo badan buu inankii la xiriiray inankan markaa maskaxda inankiina wuu bedelayaaba maalmahan ka bada waxa hooyadii la hooye waxay dareentay inankeedii inuu isbedelay oo sidii hore uuna ahayn oo family soo dhexgaleen oo sidii lagu yaqaanay iska yar bedelay ninkan baa maskaxda ka qabsadaba oo wuxuu ku yiraahdo buu ku dhaqaaqa ka yaray marka ninkan wuxuu ku yiri waa nin bay noolana bas waa nin weyn waa nin 8 jir ama 9 jir meelahaas wuxuu ku yiraahdaa maxay hooyada ku leedahay maarta xilligan seexo maxay hooyada ku leedahay guriga xilligan ka shaqee ama qolka sariirtaada ka shaqee nin weyn baa tahay yaan lagu dirin inankiibu waxaas ula taliyay waxay aragtay markaa hooyadii waxay aragtay inankii inuu dabeecadiisa maarta inuu isbedelay markaas tirkaale horta waxaan ku weydiiyay ninkan aad maalin kasta telefoonka kula maarta gameka kula jirtid waa maxay way ka shakiday hooyadii markaa hooyo caqli badan bay ahayd qolkay soo gashay joor markaasay hi halkaas iska salaantaa marka weli isma laha waxbaa jira oo hooyada markaa shaki badan maarta kuma jiro laakiin waxay ka shakisan tahay inankeedu maaragtay sababtu waxyaaba badan maaragtay uu ogolaan jiray inuu sameeyo inuuna sameyn oo uu daalan yahay dabeecadiisa xumaatay waxyaaba badan markaas waxay tiri dee waxaa kusoo kordhay waxa weeyaan inankan ay 24 hours la sheekeysanayo oo weliba ammaanayo uu leeyahay ninkani wax meesha fikradu kala wadaa waa nin sidana waxbaan ka baran doonaa saaxiib baan helay dhadhara marka isaga asxaabtiisa iyaguba way la ciyaaraan online way kula jiraan laakiin kuma darsadaan waxay yiraahdeen si buu yahay waan ka shakanay marka iyagu shaqo kuma darsadaan inankan laakiin waqtigiisa buu siiyey anyway markii dambe hooyadii waxay samaysay waxyaabo badan bay la kulantay oo aad aragtay inankeedii maartay uu ninkan ka jeedinayo noloshiisa caadiga ah waxay samaysay waxay ka wada nuucday wixii qalabkii meeshii yaaloo dhan bay ka wada qaaday ay tiri ninkana dib hawla hadlin waayo dhibaatooyin badan bay aragtay inankeeda uu keenayay oo uu ka bedelay ilaa ninkan maaragtay ay isbarteen booliiskana wala xidhiidhay waxay tiri inankayga waan u baqayaa waayo ima maqlo wuxuu igu leeyahay no libis baa ii sheegay samay xaq uma lihid inaas ay la dhaqantid libis baa sida yiri libis baa yiri inankiiba wuuba ilaawayba family inuu lahaay hooyo lahaay waxba ma jiraba ninkan baa online maskaxda ka qabsaday booliiskii markay u tagtay waxay tiri magaciisa wixii oo dhan bay u sheegtay waxay tiri please iga soo baadhay qofka xagga jooga anigu ma aaminsanay inuu qof caadi yahay waa qof been inankayga maarta u sheegayo maskaxda dooni ka qabsada marka booliiskii markay u tagtay booliiskii wixii ay hooyadu ay ka cabanayso dhan dhag uma dhigin waxba kamay qaadin inantii markaa hooyadii way iska soo noqotay inankeedii bay meeshii dee wixii maaragtay ilaa maanta oo dhan kama mamnuuci kartee wixii bay u fasaxday haddana laakiin waxay samaysay telefoonkii wixii bay ka xanibtay waxay samaysay in ay tiraahdo telefoonka kaa qaadayaa si inaan ula xiriirin anyway sheekadu way dheer tahay waan idin soo gaabinayaa alaa kulli xaal hooyadii shaki weyn baa soo galay waxay aragtay inuu ninkan uu yahay been uu sheegayo waxyaaba badan inankeedu uu ka dhaadhiciyay inay jirin marka hooyadu waxbay ogtahay waan iska ognahay laakiin ma hayr de markuu maaragtay maskax kala ku socdo ma garan kartid maaragtay meeshuu tegi doono anyway hooyadii markii telefoonka ka qaaday oo wixii oo dhan ay ka mamnuucday tiri no anigu ma doonay ninkan inaad dib ula hadashid wuxuu sameeyey wiilkii telefoon kale buu usoo diray posta usoo diray inankii yaraa telefoon kale uu haystaa ninkan kala xiriiro marka ninkan baa maskaxdiisa uu ku dhex jiraa markii dambe wuxuu sameeyey hooyadii uu ka qariyay wax kasta ay ninkan iskula sheekaystaan wuxuu yidhahdaa no caadi baan ahay ninkii lama xiriiro caadi baan ahay marka hooyadii niyadda maaragtay u degtay
حتى لو كان حتى أنا نقول حجرة وقت ما تنا لق عضنيا هويدي ويسكا فرحت حتى الحمد لله نكتب ونكحري marka inankaygiina sideeda ku soo noqonaya hooyadii iyo IP way kala tageen isku meel ma degana timi marka waqti marka ogaada telefoonka yara uu haystaa marka wili wuu la sheekaystaa wuu la xiriiraa ninkan oo ugu balan qaaday inuu shirkado waaweyn haysto oo uu balan qaaday inuu lacag badan siin doono oo la shaqeyn doono oo ninka dhigi doono khatara marka ilmaha yari wuxuu isleeyahay ninkan wuxuu arkaaba dee qof maartay khatara buu haystaa uu isleeyahay ninkan bad noociisa kala noqonaysaa nolosha uu haysto baad gaari doontaa marba New York baad tegaysaa marba dhinaca u duulaysaa marka email uu soo diraa halkaas uu ka hagaa wax kasta ka samee haddii hooyadaa baa waxa ku diiyaan waxa ku tiraada saas marka wixii oo dhan marka ninkan ay sheeg Lewis waa inay yar statement jiro oo hooyadii ay inta dhashay ka qaaqday oo waxba lahayn family lahayn waxba lahayn oo criminal aween oo qof aan ahayn fiican ahayn قلبه كجرا كوري بالسيء أو كوري كاس كجرا ونعقل بدين هلاك دولته كوري بالسيء قل كاس كجرا حكاس عيال كمارتي وسط بيدفع حيان وأضياش مارت عيال كفرح ما يقله ويلكساس كل واحد مركب ورسن شري عيال كويلش ريال وبلا بود دبر اجتماع إنتو وحلا مرت ما فهمي دونا إنه dad badan isku dayay laakiin ay tan u suurta gashay khadka uu suurta galay wiilkana marka uu wiil yar miskiin buu iska ahaa wixii dhan uu rumaystay marka hadhowta baa la fahmi doonaa wuxuu ahaay wax hadhowta la fahmi doonaa Martin Lewiska ninkan inuu ahayn wuxuu sheegayo dhan wiilkan uu sheego dhan waxba ma aha waa ina yaro meel ku xiran qol la siiyo qol ku jira waxweeyaan wuxuu sheegayo waxa ku jira nolol rafaad ku soo koray hooyo aabana ma laha qofna ma laha waa inay yaro dayacan weeyaan laakiin maskax badan laakiin shilna ma haysto de inankii yara saadi sheegay hooyadii aabihii maartay isma qabaan marka marba xaafad buu tagaa mar hooyadii buu tagaa mar aabii buu tagaa marka waxa timi waqti hooyadii ay dhoofaysay waxa maray xagga shaqada bay mar meel tagaysay inankuna wuxuu tagay meel buu fasax iskuulka maarta ay geeyeen buu tagay markaas wuxuu yiri de fasaxaas markuu ka soo noqdo waxaan tagi doonaa guriga aabahay buu tagay marka ogaada aabihii sheekadani waxaan waxba ka ogyahay laakiin sida hooyadii maarta ay uga warhayso aabihii ugama warhayo oo de si hooyadii u warwarayso waxaan uga warwarayso dhan aabihii uma warwarayo marka hooyadiina way dhaftay oo xagga shaqada kale bay ku mashquushay marka safarkii markuu ka soo noqday wiilku guriga aabihii buu tagay guriga aabihii markuu tagay wuxuu yiri aaba ma ogolaan kartaa inaan hebel inanka saaxiibkana marka aabahana inanku saaxiibka iskuulka yihiin uu garanaya wuxuu ma fasaxaysaa in caawa la soo seexdo laba cisho la soo joogo waxa buu yiri waxa uu wiilka yahay caadi waa qof aad taqaanid inankaagana maartay wuxuu yiri in hebel baan la soo seexanayaa la soo joogayaa waa weekendkii weeyaan wuxuu ku yiri okay no problem aabayaasha maartay qaar badan baa wax iska fududaysta marka aabahani kamu warwaran wuxuu yiri waa nin weyn Afrikaan jira saaxiibkii la soo seexanaya waxa malaha marka wiilku saaxiibkii uma socdo wuxuu socdaa magaalo kale u tagaya oo tareen buu qaadan doonaa ninkii Lewiska ahaa ee khadka ugu jiray waa wuxuu u soo sameeyay plan buu u soo sameeyay ku yiri telefoon buu soo diray lacag buu soo diray tigid buu soo jiray wuxuu ku yiri hadii macalin weydiiyo xilliga xagaa tagaysa waxyaabahaas oo dhan waxa tirada inankaas saaxiibkay waan maartay la soo seexanaya marka aabihii been buu sheegay alaabtiisii buu qaatay tareenkii buu qaatay ninkii buu tagay gurigiisii buu tagay wiilkii marka waa meesha marka magaalada London buu wiilku iman doonaa marka magaalada waa isku mid laakiin London maartay meesha isagu degan yahay wiilku iyo marka meesha lagu dili doono waa London that's why I really meesha maartay magaalada London bay ahayd ka dhacday marka wiilku London buu tagay uu soo qaadan doonaa London gudaheed buu iman doonaa inankii hooyadii xasuusta way dhaftay aabihiina wuxuu moodayaa wiilka inuu guriga saaxiibka maartay inuu hurdo moodayaa inankii markuu iman doono marka lama ogaanayo waxa dhacay mugtahay waxa dhowto ilaa 6 habeenimo buu xaafada yimi marka inankii markuu guriga yimi maalintii ku xigtaba aroortii meelahaas telefoon buu soo diray telefoonku wuxuu soo diray booliisku soo diray markaas telefoonku wuxuu leeyahay aniga iyo saaxiibkay
arrin baan dhex martay dagaal baan dhex maray marka labadii marka waan isdagaalay midun baa isagoo nool dagaalkii ka soo baxay waa sida uu sheegay wallahi waa telefoonka ingiriiska marka maarta af ingiriiska markuu sheegayo saas uu sheegay wuxuu leeyahay aniga saaxiibkay dee waan isdagaalay anuu nool ka soo baxay marka waxa weeyaan markaasay leedahay qofka dee maarta booliska weydiinaysaa marka maxaad leedahay saaxiibkaa wuu dhintay oo kale uu haa wuu dhintay hakano jooga marka booliska isaga u wacaya qof kale ma haba intuu marka booliska maartay la hadlin waxa hadhowta la heli doona la fahmi doona booliska intuu garaacin ba wuxuu message iyo sawirro u diray wiilkii oo meeda marka u dilay habeenkii isla habeenkii uu dilayba inanka yar intuu sawirro ka qaaday buu walaalihii faamigiisii iyo asxaabtiisii buu sawirro u diray waxa ogaaday wiilkoodii ama walaalkooda ama saaxiibkii maartay inuu dhintay waxyaabaha la yaab kale uu sameeyay wiilku markuu inankii yaraa dilay wiilkan 19 jirka ah sawirradii buu faafiyey u diray wiilkan walaalihii asxaabtiisii iyo social media buu dirdiray isagoo meeda sawirro ka qaaday markuu diray oo uu yiri wakaas walaalkii uu dhintay wala saaxiibka uu dhintay dadka bacdi markuu sawirradii diray booliisku la hadlaya marka uu leeyahay uu leeyahay adresskay waa kaas aniga saaxiibka waa isdilay waan isdifaacayay saaxiibkayna uu dhintay marka booliiskii baa imanaya marka booliiskii intana iman wuxuu sameeyay wixii computer ahaa iyo wixii telefoon ahaa meesha yaalay oo dhan buu biyeyntu ku shubay buu wixii oo dhan dhex geliyay marka waxa weeyaan waxaasoo dhan waxa weeye si booliiskuna u helin ayna u baadhin waayo waad waxaana isticmaalo computerana isticmaalo telefoonada isticmaalo wax kasta raad bay leeyihiin haddaad macadilid garaysid maarta aad baabisid meel baa jirta dad baa jira ku takhasusay oo heli kara wax kasta oo ku jira meeshaas marka sirtiisa muu doonay in la ogaado uu ku talagalay waxaan oo dhan intayna booliiska iman wixii qalab yaalay guriga ama telefoon ahaado ama computer ahaado biyuu dhex geliyay si ayna booliisku waxba uga helin halkii booliiska kaxeeyeen waxay geeyeen maxkamadda geeyeen waa la xiray xasuusta waxa uu yiri anigii saaxiibka waan isdagaalay laakiin marka ay booliiska imanayaan wiilka waxay ugu yimaadeen isagoo kursi ku xidhan jirkiisu uu mindi ka wada taagan tahay mindi uu gelgeliyay shaarka uu jeexjeexan yahay gabigiisaba maartay wuu qalqalayba inanka yar 14 jirka ah marka qof aad leedahay waan isdagaalay waan isdilay oo ana markaa dee anigu waan isdifaacayay ma suurtageli karto waayo qofka loo yimi kursiga ku xidhaya gacmihiisa xagga dambe way xidhan yihiin meel kastana mindi baa ka taagan oo saas ku dilay mindi buu geliyay saas ku dilay marka dee waxa ugu maartay naxdinta badan leh waxa weeyaan family walaalihii baa ogaaday asxaabtiisii baa ogaaday inuu noolayn walaalkood iyo saaxiibkood saasi ku ogaaday family hooyadii dee muraare dilaac bariidhan bay sheekadan haysatay newska haysatay hooyadiina waxay bilowday markaa inay shaqadeediiba ay ka dhigato inay faafiso oo waxa la yiraahdo maartay awareness ay bilowdo ay hooyooyinka kale hooyo kasta ahaatee ama waalid kasta ahaade inay faahsiiso in khatarta ay leedahay maartay dadkan caruurahan guryaha ku xidhan ee online-ka kala sheekaysanay dad aynan aqoon waxay noqon karaan caruurta marka waxaad samaysaan haddaa caruur leedihiin maartay gaming ku ciyaaraya online gaming maartay jecel ee waqtigooda geliya dad baa halkaa usoo geli kara marka ilmahaaga yar anigu kuma lihida waa ilma yar maaragtay ciifo oo waxuu doonan rumaysanaya anigu kuma lihi laakiin ma ogaan kartid wuxuu la sheekaysanayo ilmahaagaas ma ogaan kartid anigoo kale hadda caruurteeda alxamdulilah weli way yaryar yihiin laakiin waxay ii noqonaysaa lesson oo kale maartay 10 bay ii noqonaysaa inaan hadhowto ogaado ilmahayga yar wuxuu daawanaya inaan ogaado online-ka dadkan uu kala sheekaysanayo ama uu la ciyaarayo ama wax kasta ha noqoto da-ad uu noqdo laakiin ilmaha yar hadduu ilmo yar yahay waa inaad ogaatid waxaad la socotid marka hooyadaasi maanta marba iskuul bay tagtaa oo ay faafisaa baatada ay leedahay online gaming iyo online-ba marka maanta waad aragteen social media waxay noqotay wax ballaaran bay noqotay waa badweyn wayaan wax kasta nooc kasta waa ku jiraan marka caruurteena haddii aad maaragtay aad waa fiican tahay maaragtay inay ciyaalkeenu dee inay wax kasta ay bartaan online laakiin waa inaad haddana aad dul taagnaatid ogaatid haddaad hooyo tahay aaba tahay
ogow ilmaha yar wuxuu online ka sameynayo waxyaabo badan baa jira oo aad ogaan kartid maaragtay aad ku xiri kartid telefoonkiisa ama ilmaha yar ama computerka maaragtay waxyaabo spy baa la yidhahdaa aad ogaan kartid maaragtay loogu talagalay waalidka oo aad la socon kartid ilmaha yar meelaha website uu galo iyo dad kula sheekaysto marka aad waxa sameysaa haddaad aqoon maaragtay sida loo ilaaliyo isbar just ogow ama ilmaha gala sheekaysto wax tirada yaad la sheekaysataa yaad ku dhowdahay yuu yahay qofkani marka just ma ogaan kartid waxa kaaga soo bixi doonto laakiin waxay ku noqon doontaa un dee maaragtay ilaalis bay ku noqonaysaa ilmahaaga ilaalinaysa laakiin haddaad tiraada maaragtay waxa malaha online ku jira waxaas ma fahmayo ma garan kartid maaragtay ilmahaaga yar waxa xaggaas uu ka daawanaya ama uu sameynayo aniga markaa qisada maaragtay wax badan baan walaa ka faa'iiday as hooyo ahaan oo kale dee hooyo ahaan بريتو تحضر باي مارتن سمين دونا إن شاء الله إذا كانوا حد رجيني أنا مارتن حكي فايدين فيديو جن إن شاء الله حد لها كل النمبة أيو قصة كله أو إن عفا عسى أنا قرني عفا عسى إن شاء الله بركة أصحابي مركز أشوفتين ويدوا السلام يا كل النمبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.